waxaan soo rabaa halkan uga mahad celiyo inaan isna saaxiibnahay oo hartiyo isna leeyahay muxuu ahaa channelka isna harti oo aan rumaynayaa la saxaabay inaan ku soo dhaweeyno marka xoreynta muxuu ahaa dhamaato waxa leeyahay Captain Ayub oo isna Jarmalka jooga General Ayub ha isagana waxa weeye waxaan rabnaa hawshan hil walaali qayb uu ka kicintayo isna waxa weeye reerisiisi fariin baan uga sidaayo waxa way salaamayaan marka fariinta inaan halkan ka gudbiyo ma dawladda madaxweynaheedii waxa dawladda sheeganaysa madaxweynaheedii iyo xisbiyeedii iyo jananadeedu isku reerka yihiin cid wax xalale muxuu ma jiraan وعيدن تمرير وعيدن شوي وعيدن لقى عتكاضي وعيدن أنت هل استسيس قلت جن وعيدن ما دلات تخرج شوقي ورنا إلى جنبرا ورنا إلى مرا ورنا إلى لا سعانود ورنا تعيد ما أسمر كانوا تشوفنا كأت كان تيجان كاسونا كقبلنا تخرج كقبلنا جنبرا كقبلنا كلا كقبلنا لا سعانود كقبلنا أود وإحنا قلنا الاستسيارة 2 كيلومتر وحكير أي لما ركز سارين وجوت عدان أما أنا ودك يعني مسمى باهي المجا على قاطه محوها دروش ستيت أوف صومالي لقاطه بدأنا وحوي دتك صوب حي إميت كدل أوي المدهرات دي بمحوها رساس من نور بالله دتك ودي من شيء بعدك بوحي قاعدين ليفل يقف سوق أنت كدي له أي أنا ميت سلام قاضية حديث صورتها حبينك كعدونك إلهي هون حريستي سنق بتراوي وبنتي dadka ma dadku ma iska soo baxeen mise seebal ii sawir habeenkaas qaabkii kacdoonku u bilowday nintsama baad suurka Soomaaliland loo codiyay goor istaaga deegaan rubaanta laga coday deegaan hartina laga coday nin ina saadla sayid leeyahay ba waxa lagu hordilay muxuu ahaa ملشاك سومالي waxay ku dinay ceelka cali barkiisa goor habeenimo maqrib markaas markay dileen oo dacin meedkiisa la qaaday lama qaadi karo inta dileen meedkiisa lama qaadi karo shafar badan baa gaadhay baawar badan baan ka qabsanay baawar badan baan ka gubnay waxa la wixii madaafiicdu ridi jiraan ognahay hadda waxa weey madaafiicdu waa sidoo hore mar ridaan waxa weey cid ridaaba waxa la wixii madaafiicdu ridi jiray madaafiicdu nin dhintay muxuu ahaa in dhaawacay noqdeen iyo madaafiicdu wax gubtay ka ciidanka awood ahaanna waa sugna waqti aan fogeyn anigu hadeer bariya saada ma oran maayo muxuu ahaa waa sir ciidan waqti aan ogeyn ciidamada deegaanka ICC muxuu ahaa waa laga safaynaya halka shirkadii waxay dhakhtarkii waxay ceelkii magaalada ka cabay dumiyay ee dadka xasuuqay ee magaaladii BM la dhacay waxa weeye muxuu ahaa dadka wax isku kaay haray ma jiraan ciidamada gooja cad joogan waa sugna awood ahaan iyo tamar ahaan midda labaad ciidamadan ciidamaanu bariyayno oo aanu garka haynaa ma waa ciidamaanu istinay qaar aanu ka adkaano deegaanka ka saarnay inta hadda deegaanka ku harsana aanu ka safaynayno deegaanka anaga Ingiriisnimo guumaysan anaga hadda anigu tanul baan tabaniga Ingiriisnimo guumaysan daruush baan hayo ilaa maalintu baxay xabada anigu socotay heshiisna lama aanan gelin beelaha shaaqda heshiis la galay Soomaalidan garan waxa weeye maxaanu heshiisna lama aanan gelin xabad bay noo ahay sidii baan ku kala calaf qaadnay anaga Ingiriisnimo guumaysan kuwa Ingiriis ba guumaysan dhulka Soomaaliland baa loo jiro guulaysan waa beentu Soomaaliland waa noo kala dhamaatay la saacado nin aabihii la dilay nin adeerkii la dilay nin awowgii la dilay nin maxaa baa jooga dadka la saacado qof aan khasaaro u gaadhay waa hooyadii la dilay waa nin aabihii la dilay waa nin adeerkii la dilay kulligood dhibaato wada gaadhay way boodo rag maalin bannin baa mid baa qaawan walaalnimaduna waxa weeye muxuu ahaa waa hiil ee wax kale maaha awood bay ciidanka ICC u leeyihiin inay deegaanada ICC gacan biro ku qaban karaan xitaa waxay awood u leeyihiin ciidamada ICC inay deegaamo kale u talaabi karayaan kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan noo suurtagalay inaan waraysi ka qaadano siyaasiga dhalinyarada ah ee reer Laascaanood Cabdiqaadir Maxamed Hagar oo ku magac dheer Ayatullah Hagar soo dhawo mudane oo dhawaaya aabban salaamaya soo dhawaada ugu horeyntii mudane waxaad ka mid tahay dhalinyarada reer Laascaanood siyaasiyiinta wadooyinka halganka jamaahiirta ka mid ah bal waxaad waraysi naga siisaa warbixin sidii kacdoonku u bilowday iyo bal ka bacdi dagaalkii xigay iyo fursada bismillaahir rahmaanir rahiim والسلام يا دمانتي warbaahinta kala wanaagsan baad leeyahay waa anuu shalay baan ka yimi gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood barna insha Allah inaan degmada Laascaanood ku noqdaan rajeynaya dilaan iftidaayo safar yar gaaban saacada baan ku soo gaaray Garowe oo caasimada Harti hadir hadda caasimada Harti waa caasimada Puntland kaliya Puntland iyo ACC dad badan baa hadir caasimada marka caasimada Harti waan oranahay iyo umada Soomaaliyeedba waxa weeye arintan muxuu ahaa bilowgii kacdoonka ACC waxa weeye wuxuu ka soo bilaabmay magaalada waxa weeye muddo 16 sano 2007 maamulka Soomaaliland ama jumhadda
SNM baa 2007 qabsatay waqtiga nin daahir yaala ka hin leeyahay baa madaxweyne ka ahaa siyaabo kala duwan oo muxuu ahaa oo meel far badan gacan saar ka helayo meesha ku yimi waxa ka mid ah siyaabo ku yimi laasacanood wixii ugu xoog badnaa marka waxyaabo iyo siyaasado deegaanka jira sardiye marka laga yimaado wixii ugu xoog badnaa iyo awood ugu badneed ama force ugu badnaa meesha keena waxay ahayd dawladdii TPLF Tigreeg hogaaminayay gobolka Sool keenay dabeedna iyagoo arrimo ONF iyo ogaadeen waxyaabo noocaas dadka deegaanka Sool degan noloha wala leeyahay qabayl ahaan bay isku constituency ama isku meel bay ka soo jeedaan dabadeedna iska waxyaabo propaganda ah oo qolada TPLF Soomaaliya si xun oo muxuu ahaa kansarka ka xun ugu milantay baa ka dambeeyay qabashada magaalada Laascaanood haday tahay siyaasadda kale inay cid kale ku qanciyaan iyagoo maamuladii markaa Soomaalida Tigreeg muxuu ahaa wadayo dadku dad u shaqeeyay dadka maamulada muxuu ahaa madaxweynayaasha ka ahaa iyo hogaamiye kooxdii markaa xamarka jiray marka iyaga daahriyaale gacanta u galiyay oo awood ahaan iyo military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba resource badan galiyay muddo 16 sano Laascaanood wax horumar ama development ama investment midna kama jirin development investment waa meelaha ugu dambeeyay waxa way xitaa amnigi oo adogtay in diinteena la yiri al-amn wal iimaan oo iimaankii laga horreysay amnigi marka qiyaastii 15 ka sano 15 sano marnaa 15 sano dadka ku dhintay qiyaastii ka calculation ka isku celceliyo dadkii ugu dambeeyay Song Badraaw dadkaas 100 iyo dadkaas 120 way ka badan yihiin inta dadka bay kordhaaf inta madaxduubka lagu dilay waa tahay marka kacdoonka maxaa dhaliyay Song Badraaw wuxuu kamid ahaa dhalinyarada wax garadka ahayd balka faahfaahin naga sii kacdoonka habeenka mudadka buuxsamay si kala wuxuu jireen bal noo faahfaahin muddo fara badan oo farmaaninta Soomaaliland timi ilaa markaa Travel la dilay waxa weeye magaalada waxa ka dhacay dilis daba jooga oo qorshaysan oo cid walba la dilayo hal doorkii magaalada la dilayo muxuu ahaa ganacsatadii la dilayo oo muxuu ahaa managerkii Telesom oo kale baa kamid ahaa waxa kamid ahaa maxaadad muxuu ahaa aan u shaqeynin Soomaaliland oo kale haween la hooyo inka muxuu ahaa dadkan u shaqeynayay waxa jiray muxuu ahaa dad nin hadar xildhibaan xamarkii magaciisa muxuu ahaa waxa la yiraahdaa oo dahabshiin ka shaqeyn jiray Maxamed Xirsi oo isaguna xamar ka yimi oo Laascaanood yimi oo xildhibaan federaalka doonayay oo constituency-ga deegaanka soo jeeday gobolka Sool oo beeshiisuna xildhibaankii federaalka ay siiyeen isku waafaqeen isagana waa Laascaanood baa lagu dilay marka dad fara badan oo cid walba leh ganacsato leh dad muxuu ahaa culimadu target bay qaarkood ahaayeen bal waxaad ii sawirtaa habeenka kacdoonka Ilaahay ha u naxariistay Song Badraaw uu dhintay dadka ma dadku ma iska soo baxeen mise seebal ii sawir habeenkaas qaabkii kacdoonku u bilowday hal mar butaacay magaalada butaacday wuxuu u butaacay magaalada far badan baa lagu laayay dadkuna waxa weeye muxuu dhibaatooyin far badan bay tirsanayeen marka waxa weeye capacity bini'aadnimadu inta qaadi lahayd bay soo dhaaftay magaalada far badan baa lagu dilay waxba laga ma qaban dadka ciidanka hortooda lagu leeyay meelaha ciidanka Soomaaliland ay joogaan muxuu ahaa hadeer Abdullahi laba gol Allah naxariisana ka warabay dadka meesha ku dhintay oo dhan ma habeenkii la dilay ciidanku gurigiisa hortiisa lagu dilay wax yar wax 15 mitir ka yar ciidanku ku jiray xitaa wax nolol sheegay inaanu dhalay inuu qayliyo yiri muxuu ahaa marka qofka dilay inuu dhalay la socdaa oo dabadna askartu ay u dhaqaaq waayeen ka quran ma dad fara badan oo masar jaamac magaalada Laascaanood artay meesha ku yaala dabadiisa hortiisa dad lagu laayay ma dad ciidan oo labisan baa mise waa dad afduubiyaal ما هو ضد مدحدوبه او قرشيسن ودل قرشيسن او ريسوس بدن la galiyay saad u maraynayso marka dadka reer Laascaanood mudada Soomaaliland joogtay waxa weey hal doorka dhan baa la laayay marka hadraawna dadka miisaanka cuslaabo kamid ah hal doorka la laayay marka kacdo markuu isagu dhintay de waxa la arkay cid allaalaya muxuu cid haraysa inaysan jirin waxa weey hadraawi anoo saaxiib aan ahayn wuxuu ahaa nin aan cidna afkiisu gaarin waxa weeye siyaasad ku jirin cidna haynin dadna waxa la arkay dadka hadraawi u yidilay cid alla cid ay ina meesha waxa ka soo baxday inaan cidba la reebin marka dadku muxuu ahaa xanuun ay tirsanayeen sida foolkaanaha dadku qarxeen waa tahay marka kacdoonka ka bacdi kacdoon baa dhacay dagaal baa dhacay isbedel magaalada hadda waad joogtaa Laascaanood dhalinyartii Laascaanood ku dhalatay wax ku baratay wax soo baratay baa tahay maxaa hadda kaaga muuqda maxay isbedelaan
تلاصع اسبدل وين ما كان مقدا horta hadraawi markii la dilay mudaharaad baa ka dhacay magaalada mudaharaadka marka dhacay hadraawi markii la dilay family dadka ehelka ahaayeen family reer laasacad wadadooda ehel baa soo baxay dabadeedna waxa weeye dadkii soo baxay imeedka ka dil ooyay ee mudaharaaday baa muxuu ahaa rasaas min nool baa la dhacay maleeshiyada Soomaaliland baa la dhacay waa doctor ay halaatan dad ku dhawaal dilay 70 qof ku dhow dad ku dhow wala dhaawac waxa weeye muxuu ahaa isla laba habeen ka bacdina nin ina saadla sayid la yaabo ba waxa lagu hordilay muxuu ahaa maleeshiyada Soomaaliland waxay ku dinay ceelka cali barkirta goor habeenimo maqrib markaas markay dileen oo dacin meedkiisa la qaaday hadal lama qaadi karo inta dileen meedkiisa lama qaadi karo habeenkii dabeedna muxuu ahaa kacdoon maxay ka soo baxay markii la yiri meedka lama qaadi karo lagu daray dadkii hore boqol iyo warisaadka ku jiray waxa weeye dadkii madaxa dadku duuban jiray ba dadku waxay gaareen level ay qof suuq inta ku dilaan ayana meedkiisa lama qaadayo ceelka cali barkirta ku dinay ciidanka Soomaaliland baa ku dilay ka jabooyntu yaalay marka dacmeedka dadka inay qaadaan raasad waxay lama qaadi karo dabeedna kacdoonkii dad bay sabaabulay dadka magaalada dadna waa habeenkii muxuu ahaa ciidanka Soomaaliland magaalada laga kacay koonayaasha muxuu ahaa looga saaray magaalada isbedel weyn baa ka socday waxa weeye isbedel ka socday magaaladu waa magaalo xora magaalo Soomaaliyeed adoo suxuf baa tahay saxaafadu dhan muxuu ahaa ay joogtay international community qaarkood soo booqdeen dawladda federaalka waxa weeye muxuu ahaa institutions kala duwan golayaashiisa kala duwan ay soo booqdeen magaalo Soomaaliyeed oo xor weey marka laga yimaado khasaaraha iyo dhibaatada muxuu ahaa maleeshiyada Soomaaliyeed hadda ayaa keenay oo hadda ciidankii booliska la arkaya ciidamada traafikada la arkaya balqaabka istiraatiijiyada loo sameeyay garad jaamac garad Ismaaciil oo halkan muxuu ahaa bale uga dirayo iyo bogaadin garad Ismaaciil baa shir ku dhawaaqay godol oo dhigay gurigiisa marka waxa soo dhan dhaceen magaaladiina muxuu ahaa kacdoon iyo ay noqotay dabadeedna guddi baa la saaray 330 oo ka soo jeeda dadka deegaanka guddi 330 ka waxa weeye dabadeedna muxuu ahaa dadkii bay la kulmeen godol kale muxuu ismadana uu dhigay ismada deegaankana uu dhigay garajacan golaha dhaqankana uu dhigay garajacan gara Ismaaciil godol dabadeedna guddi 330 ka bulshada iska soo dhex dooratay muxuu ahaa ismadii dhaqanka ee bulshada metelay qaybihii bulshada qaybihii haweenka culimadii ganacsatadii waxa weeye dhalinyaradii dadkii oo dhan baa muxuu ahaa isu yimid dadna waxa go'aan lagu gaaray in Soomaaliland systemkeedu sanad ka shaqeyn karin oo ummadii hal doorkii la laayay muxuu ahaa ummadii la dhibaateeyay muxuu ahaa waxa weeye amniga waxba laga qaban dadka laayinaya iyaga ay yihiin dadkii marka la yahay maxad leenaysan dadku soo baxaan waxa weeye darsaas noolba dadkii la dhacayo dhinaca kale waxa weeye magaalada wax horumar ka socon magaalada ganacsi xoog badan ka socon magaalada la curiyaamiyay waxa weeye dadkii cashuur iyo tax dheeraada ay ku soo rogeen waxa lagu heshiiyay maamul la helo dadka deegaanka inay tashadaan oo ayaga ka tashadaan oo ay sameystaan goliga deegaanka ay sameystaan muxuu ahaa ay goliga deegaanka golihii hore baa dad jooga oo dadka la dareen noqday oo maayirkii baa jooga oo isagu waa consul oo dadkaas soo doortay marka hore marka meeshii dadku aaday isagu muxuu ahaa buu la aaday waxana go'aan lagu gaaray muxuu ahaa tan Soomaaliland la isku xoreeyo waa tahay siyaasi baa tahay dhalinyarada aqoonyahana higsiga ballascaanood magaalada markay gobolka Sool bal higsiga maxaa higsanaya federaalka marka laga baxo higsigiisa muxuu kula muuqdaa gobolka dad wuxuu higsanayaa in system nidaam kala dambeyn u yeesho oo maamulka deegaanka ICC waa deegaan ballaaran resource fara badan buu leeyahay haday shidaal tahay macdana kala tahay dadka deegaankaas waxay doonayaan waxay hamuun u qabaan inay maamul goboleed ICC state ama khaatuma waa la yiraahdaa ama anu dadka aaminsan baan baahay in magaca la qaato muxuu ahaa Daruush State of Somalia la qaato oo dadka aaminsan baan ahay badanka meesha dadku magaca qaataan baan anigu raacaya ku khasbana oo dadka la tala oo meesha majority gu aado baa dadka inta minority ga codka laga helay hadii codka la qaado waxa weeye muxuu ahaa inta laga helaa minority bay noqonaysaa marka anu dadka aaminsan baan in Daruush State la qaato Soomaaliland wali ka dhamaan coach cadeydin furida ciidamadeedii waana la sheeganayaa wali balaragtidaada Soomaaliland waxa waxba iskuma ka yahay magaalada burbur far badan bay u geystay waxa weeye iyagoo muxuu ahaa siday dadka wala macaabileen oo dadka waxan suuqeen qof kasto Soomaaliyeed qof kasto Islaam uu garan karaa in dadka waxba isugu hadhin muxuu ahaa dhimasho inaan isku dhimano baa suuqa ay hadhay khasaare ka badan u yimaado Soomaaliland waxa weeye muxuu ahaa dadka deegaanka xasuuqeen magaaladii bay burburiyeen waxa weeye muxuu ahaa waxa weeye wali Soomaaliyiinta jirtay wixii Soomaaliyeed isleeynayay waligeed lama arag muxuu ahaa ilaahu gaami kooxda xamarka soo qaad ilaahu Soomaaliyiinta isleeynayay wali lama arag muxuu ahaa dad dhakhtarkii dhaawac dhigay laga garaacay oo lagu garaacay BM ya kaare isbitaaladii
dad markii isbitaalka la garaacay muxuu ahaa shirkadii korontada ee leedka bixinaysa la garaacay oo dhakhtarkii beeshina hore waxaanu sanay dagaalka ka hor xanuunsanay oo yaalay muxuu ahaa oxygen ku xidhnaa ay jireen dad dhaawacay oo maxaa operation lagu sameeyo qalin lagu jirin ay jireen oo qalab kale aad ogtahay inuu qalab electronic wada yahay waxa la sheegay waxa kale iyadana jirta shirkadii biyaha ee kamariga magaalada laga cabiyay baayadana maxaa la duqeeyay waxa jirta shirkadii korontada ee Sol Power magaalada leedka bixinaysay baa la duqeeyay waxyaabaha hadee muxuu ahaa dadka waa la laayay marka dadka nimaano kan ninka shirkadii waxay ee dhakhtarkii waxay ee ceelkii magaalada ka cabiyay dumiyay ee dadka xasuuqay ee magaaladii BM la dhacay waxa weeye muxuu ahaa dadka wax isku ka yahay ma jiraan ciidamada go'aacada joogaana waa sugnay awoodahan iyo tamarahan waa ciidan tamar yar waa ciidan jabay waa ciidan laga adkaaday waa ciidan inta hal dhista si isugu tageen waa ciidamadii ilaa tukraq joogay wadnaa ilaa gambaro wadnaa ilaa maraa wadnaa ilaa laascaanood wadnaa ciidamadaas markaan jibinay ka adkaanay deegaankaas oo dhan ka qabanay tukraq ka qabanay gambaro ka qabanay ekelada ka qabanay laascaanood ka qabanay awoodoodu waxay noqotay distance yaro 2 kilomitir wax ka yar ay dhabarka saaraan goda oo gooja cadda ay saaraan dhimasho far badan baa gaadhay baawar badan baan ka qabsanay baawar badan baan ka gubnay waxa la wixii madaafiicdu ridi jiraan ognahay hadda waxa weey madaafiicdu waa sidoo hore ma ridaan waxa weey cid ridaaba waxa la wixii madaafiicdu ridi jiray madaafiicdu nin dhintay muxuu ahaa in dhaawacay noqdeen iyo madaafiicdu wax gubtay ka ciidanka awoodahaana waa sugna waqti aan fogeyn anigu hadeer bariya saadam oran maayo muxuu ahaa waa sir ciidan waqti aan ogeyn ciidamada deegaanka ICC muxuu ahaa waa laga safaynaya waa gartay 45 bal sameeyay gudigii 33 lagu kordhiyay taabal faafaan ka tii niyow 33da si waxa loo dhisay degdega oo godasha garaacan garas Ismaaciil ku dhawaaqay ba 33 wax ka soo baxday in la dhiso ka si degdega loo dhisay 33 khayr Allah si halkan ooga mahadnaqaya gudoomiyahooda chairman-koodii iyo dhamaan xubnaha oo dhan shaqo far badan oo adag bay qabteen markii dadka deegaanka soo yimaadeen ismadii dhaqanka aqoon-yahankii ganacsatadii culimadii qaybihii bulshada haweenkii cid walba leh waxa la soo saaray muxuu ahaa qodobo halka baa la soo saaray qodobada waxa kamid ahaa in Soomaaliland wada hadal la gali karin la inta xuduudda ICC ka baxayaan ay og tagayaan in guddi la dhiso matalaad siyaasadeed oo guddida hore waxay muxuu ahaa waxay community waxay guddi baahay marka in la dhiso muxuu ahaa guddi in guddida laga guuro oo la dhiso matalaad siyaasadeed deegaanka ilaa inta muxuu ahaa dagaalka laga baxayo maamul iyo system waxa la gaarayo oo matalaad siyaasadeed la helo marka dadkan ku heshiis qodobadii maalintii la yeedhnayba kamid ahaa dadka ma aad u dhageystay marinaya maalintii xabadu dhacday xabada lagu mashquulay communique ismadu soo saareen muxuu ahaa bay kamid ahay guddiga 3 marka ilaa inta waqti baan loo heyno dagaal baa lagu jiray waxay ku maqaalaha marka in Soomaaliland wali ay magaalada ku leedahay dad badan oo qaab sirdoon ahaan ugu shaqeynaya arinta iyada war ma kaaysan waxba kuma leh magaalada waxa soo habeen anaga Soomaaliland waa noo kala dhamaatay la saacado nin aabihii la dilay nin adeerkii la dilay nin awowgii la dilay nin muxuu ahaa baa jooga dadka la saacado qof aan khasaaro u gaadhay waa hooyadii la dilay waa nin aabihii la dilay waa nin adeerkii la dilay kulligood dhibaato wada gaadhay marka ma qabo anigu waxa iyaga sheega laakiin cid la saacanood information ka difaac ma jirto anagu waxaan u qarsanaynaa ma jirto Soomaaliland dhulka iyaga aanu difaacanayna marka horena system iyo dawladda muxuu ahaa sirdoonna iyo muxuu ahaa wasaaradda gaashaandhigga ma ahayn reer sabablay oo tignika haystay oo tigniku haday isu keenaan waxa weeye kumaankumay gaadhayso macna yeelanayso baan ahayn waxaan reer saraakiil akademiga oo dawladda Maxamed Siyaad Barre ilaa Raash ilaa muxuu ahaa soo maray waxaan aqoon ahaan dad dhisan baan ahayn marka dadka inta isu yimaadeen waxay go'aan ku gaadheen in Soomaaliland la iska saaro marka wax qarsoon ma jiraan waxa ay muuqda hay'ad inuu idin dhisan yahay marka jidadiiladiina state baa rabtaa inaad gaarsiisaan Soomaaliya mustaqbalka ugu dambeeya annagu dadka deegaanku waxay rabaan inay ka bixi waayaan ka waran ciidamadan Soomaaliya meesha idin fadhiya maxaad aragti ahaan dadka leedahay ku daawanaysan horta laba ishu waan kala qaadayaa mid dadka deegaanku maamul bay doonayaan inay sameystaan intooda majority-ga walkiiba 98 marka dadku maamulkaasi ku midaysan yihiin oo biisacbadaada laga dhargaa waxa way dadku caafimaad bay rabaan waxbarasho rabaan amni bay rabaan waxa way waxaasna waxa lagu gaari karaa the system in la sameeyo waa lagu gaari karaa marka dadku waxay rabaan in state meesha laga sameeyo mid labaad ciidamadan aanu baryayno oo aanu garka haynaa ma waa ciidamada aanu istinay
qaar aanu ka adkaano deegaankay ka saarnay inta hadda deegaanka ku harsana dee aanu ka safaynayno marka ciidan aanu leenahay caqabad hadda nagu haya maaha hadday naga tagaan ilaahay bana soo kala furay khasaaraha iyaga dhimashada laba dhinac yaraan haddii kalena awoodii aanu deegaanada kale kaga saarnay aanu leenahay oo kaga saarayna waa tahay dowladda federaalka Soomaaliya wax xiriira marka laga reebo xildhibaanada ku metela gobolka ama ACC mooyaane ma jiraan waa dhowr jeer oo waxa sheegteen in lascaanood ama ACC ay ka mid tahay federaalka arinta baleeda ka wada anagu horta priority aan ku mashquulsanahay midnimada dadka deegaanka oo midaysan hadeer iyo difaaca iyo xoreynta dalkan ku mashquulsanay deegaankayga dhulkayga daan xoreysanana waxa weeye muxuu ahaa dabaqcad baan fadhinaa nin walba waxa weeye muxuu ahaa goofkayga baan fadhinaa ninna bari meel nin walba isaga nagu khasban ninka xamar iyo dawladda federaalka joogan gabigiisa wuxuu joogaa madaxweynaha mandatekiisa waa 4 sano marka waxay 4 sano hadduu dadka mideeyo wixii loo dhaariyay muxuu ahaa iyo dawladnimadu ka shaqeeyana isaga credit ku hiriyo doorashooyinka dambe laga yaabaa inay caawiso iyo muxuu ahaa wuxuu ka tagay legacy haddii waxa weeye wuxuu u dhaartay uu muxuu ahaa hagal daaciyana de ilaahay ba kala xisaabtamaya laakiin dawladda federaalka anagu wax dhibaato ay nagu haysaa ma aragno xidhiidh waa la sameynaa waxaa noo mitira golayaal baanu leenahay oo jooga aqallo hoose iyo aqallo sare muxuu ahaa waa wada hadalnaa waa dawladdeedii wax naga xuni ma jiraan Soomaaliland waxay sheegtay maalinta ciidda inay weerari doonto lascaanood qabsan doonaan bal arrinka ka warayada muusaana madaxweynaha Soomaaliland baan sheegay waa maqlaynaa laakiin horta ma yidiin lascaanood ma laga yidiin anigu hadeer waxaan rabaa inaan muxuu ahaa caawa baxaan birta dilaa naftayda cid yiidaysaa ma jirto dadku difaac bay ku jiraan waxa weeye difaac bay ku jiraan ilaahay baa muxuu ahaa waxa weeye wada naftooda maalkooda difaacay marka intii kartay furin ku tukan kartaan oo ku tukanaysa furinta intii kale gaar haysaayaan awoodin maxay tukadaan waxa weeye muxuu ahaa faral kale bay muxuu ahaa cadawga hor fadhiya tuutahan oo ku ciidan ha tuutaal lagu yiday tutaalista waa gartay gudigu arrinkan ma ka baaraan degayo xukun ka soo saaray siyaasiyiinta iyo aqoonyahankiinu in arrinkan ciidamadan dhinac loo saaro ama dagaal ama go'aan ma ka gaadheen taas ciidamada go'aacada jooga نودي عيدا ماذا مرحلة ماشية مريسو والله سمعتان وضد وان إيو محوها وضع هذا الأفرين منه ماشين waxay ku joogan gardar nimanku deegaankan male markii maamulka Soomaaliya dhisay iyagu waxay ka baxeen dawladda sharciyeysnayd ee Soomaaliya bilahay waan ka baxnay iyaga yiri calankoodu uu ka taagnaa muxuu ahaa UN baanu ka baxnay bay yiraahdeen cid kullaysa ma jirto dawladda sharciyeysnayd iyagu inaan waxaan sharci ahayn oo reera ay yiraahdaan muxuu ahaa dadka anaga xukumayna oo waxa weeye ciditaada ka mid yihiin oo ku dilayna صحما تي سوماليات بيجو كبحين وكأود بالنيل. دستورك كمل جارك الصومالية قدك في سنة 30 لغات في القدس السائل وحقوقا بالحوينة جمهورية فدرالية الصومالية والعالية من لماذا علنك بالكورة عرفت هذا بالحوينة. هو واجبات ككوبات. بالحوينة تهدر دبعتس أما دليل أنا كنت سنة متشرو إنك استوى أنا حق رشدة أنا دوني نمحوها دينو شقيو وده كان ديجان كاتشوجا من لماذا الصومالية بيو تاجريا سجى تاجر سين وحن رمنا سجى رجل زارها محوها إن أنا كي مركا معقولة إن أنا وكويسونه ويديجان كمحوها نقول ماذا ويسمى يجدير يدمان غيبها بالشدة محوها أي سركان إذا ما ماشي تشوجا إذا ما فدرال إذا ما ماشي تشوجا محوها هذه يحتاج دولته ترى هذا وعندما فدرال والسيستم كم محوها كتر تنسيسي لكن وعندما فدرال مشاركة فدرال كيمات حتى تضأقل بارنها أنت ليها عيدك حقوق ضلك الصومالي حتى الأوزقي ودول الأوزقي أنا الصومالي لما ضم محوها عقدتك مقمة لما كهلك تشوقي ساقي أنا تقالني بأنه إحنا نقدر حين وإحنا أنا وضلحين دستور كلا وضع 1997 بعد دستور الصومالي اللوعدي يقول استاج ديجان ربما هتلاقوا معه ديجان هرتنا لقوا معه يقول استاج إن الأرض عم برنا فود لما جين دهرنا لما جين عرقامين الديانته ندقنا لما جين يسناك لاصعانون لما جين حدنا لما جين تريحنا لما جين عدقون استاج الصومالي لأنه إحنا شجعون عضيسي دي ما شرت وحنا اللي ما نوجين وحنا اللي مليهين والدولة ده مدحوينه هدي واحد دولة الشجعان اسمه مدحوينه هدي حسبيه دي كنا ندي سكرير كيهين عدو حلاله ما تشران يدي هير شبله وايسكم هير شبله صمام الرير ليه ما قلمدو صمام الرير ليه ما بوتلان صمام المحوها بيلا حرتيكم يسين ما تكواس لما وا ريرو waxaad ugu baaqaysaa international community iyo siyaasiyiinta dawladda federaalka international community waxaan ugu baaqaynaa
international community waa mahadinayna Mareykanku waa ogtaa wasaaraddiisa muxuu ahaa safiirkiisa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wasaaraddiisa arrimaha dibadda inta waxa weeye muxuu ahaa press conference bay soo saareen dhowr jeer oo press statement warqaday soo qoreen malcad bay iska taageen Mareykanku muxuu ilaa cunaq qabateen buu gaarsiiyay inuu yaadaan saaraya inuu yaado ciidamada maleeshiyaadka Soomaaliland meesha laga baxo Ingiriiska ilaahayeen waana gumaysanaya waana gumaysan jiray waana jecel lahaa oo loof ku ahaayeen waa kii isna soo saaray communique ee ciidamada maleeshiyaadka Soomaaliland deegaanka muxuu ahaa gobolka Sool ha ka bixeen deegaanka anagana Ingiriisnimo gumaysan anaga hadda anagu tanul baahan anaga Ingiriisnimo gumaysan daruush baan ahayo ilaa maalintu baxay xabada anagu socotay heshiisna lama aanan gelin beeraha shaaq baa heshiis la galay Soomaalidan garan waxa weeye anagu heshiisna lama aanan gelin xabad bay noo ahay sidii baan ku kala calaf qaadnay anaga Ingiriisnimo gumaysan ku yaada Ingiriis baa gumaysan dhulka Soomaaliland baa loo jiro gumaysan waa beentu waxa Ingiriis anaga nama gumaysan waan isdilnay heshiis beeruhu heshiiskooda ku yimaanaan ahayn kuwii muxuu ahaa turta ku qaadi jiray muxuu ahaa DCD soo magacaabi jiray maanaan ahayn kuwii muxuu ahaa kabaqaadka oo maanaan ahayn waxa weeye waxaanu ahayn waan la dagaalamayay anaga Ingiriis taariikhda muddaa waa la khalday Ingiriisku anaga nama gumaysan deegaankana heshiisna lama aanan gelin markii dambena waa isdilnay marka anaga nama gumaysan saan isu dilaynay baan ku kala calaf qaadnay marka dagaal baad ku jirteen oo wuxuu ahaa dagaalkaasi mid ku dhamaaday ilaa xorriyadii dagaal baan ku jirnay ilaa 2022 ilaa 2022 baan ku jirnay marka Soomaaliland waxaan leenahay koox cadoon bay ku harsan yihiin koox cadana bil cibaada lagu jiray anagu dad islaam aan nahay waxa weeye muxuu ahaa wax badan baa dad islaam aanu magarasa cibaada jirtay intaan waxa weeye waqti dheer extension baan uga dhigin oo bal in meyrku ku soo dego waa ku soo dego waay ciidamada SSC waxa weeye iyaguna waa ogyihiin anaguna waa ka tirsanaa goobaha iyo furmaha ciidanka dadka joogaan oo taga awood bay ciidanka SSC u leeyihiin inay deegaanada SSC gacan biro ku qaban karaan xitaa waxay awood u leeyihiin ciidamada SSC inay deegaamo kale u talaabi karayaan laakiin anagu qorshaha iyagu muxuu ahaa awood ay leeyihiin inay deegaanada xorey xataa deegaanada kale u talaabi karayaan laakiin anagu awood ma aha ajadaha iyagu inaanu cid kale dulmino deegaan SSC ahayn inaanu muxuu ahaa ciidamada deegaan ahaan bal u soo dadka xagee ku agyahay marka dhanka la aado qooyay gobolada SSC way balaaran yihiin SSC waa gobolada SSC waa gobolka Sool oo degmooyinkiisa Xudun Taleex muxuu ahaa Laascaanood caasimadiisa gobolka Cayn degmooyinkiisa waa badan yihiin Woodwood iyo muxuu ahaa badan yihiin kalbar ma waxa ka tirsan tahay Laascaanood waxa weeye Allah musta'aan waxa weeye buu hoodle oo gobolka Cayn xaruntiisu tahay Cayna sanaag oo dhan bade oo ilaa dhulbaanta degan yahay oo ilaa warsangeli ilaa dhahar ilaa baran waxa soo dhaweeyay inta aan leedihiin goboladan togdheer iyo waqooyi galbeed bal halkaas sawir xagee ku egtiin dhinaca ICC waxaan ku egnahay ma ogba mise waa gumays waxaan gumays oo dhaafsana حدودك مع كنترول اوغبا نو حدود وديغانكيغا dalka sanaagna waxaad ku egtiin dhanka sanaag waxaan ku eegnahay muxuu ahaa magaalada de waad ogtahay muxuu ahaa bariga galbeed anaga degan iyagu waxa inta waqooyiga bay degan yihiin ilaa de marka la socdo muxuu ahaa ilaa de sanaag marka degmada ceelgaawo laga qaado ilaa de muxuu ahaa baran dhahar laas qoray waxa soo dhan waa deegaan SSC waa deegaan waxleeda waa deegaan state ka weyn waa state deegaan ka balaaran waa deegaan artay dhulmaanta warsangeli cid walba dhamaadka galabta gudoominta maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Sool SSC reer Puntland guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan intaan horta baaqa bulshada waxaan ugu baaqayaa inuu gelin waxaan rabaa dad badan baan aragnay warbaahinta ka hadlo waxay yiraahdaan garaad cali ama garaadadu meel bay ka yimaadeen oo muxuu ahaa gobolka Sool ama degmada Laascaanood oo ka baxsan yihiin dadkaas juqraafi kala ahaan dad deegaanada ma kala yaqaanin waxa laga yaabaa degmada Laascaanood inay inta guriga ka dhisan yihiin inuu haystaan degmada Laascaanood waa degmo ballaaran hadda garaad cali sarax dheer meesha la yiraahdo 15 sano u dambeeyay uu joogo badnaa uu joogay waxa laga yaabaa 15 sano marka la isku ururiyo inuu 6 bilood ka maqnaan degmadaas waa degmada Laascaanood oo ninka jooga muxuu ahaa garaad cali wuxuu joogay degmada Laascaanood garaadku wuxuu joogay degmada Laascaanood laakiin degmada Laascaanood inta system ka shaqeeyo ka maqnaa degmada Laascaanood xayndaabkan guriga ka dhisan yihiin magaalada ah oo system ka shaqeynay laakiin sax dheer degmada Laascaanood bay ka tirsanta oo consulka maayirka Laascaanood degmada wuxuu jirtaa muxuu ahaa wuxuu jirtaa 60 kilomitir meelaha wuxuu jirtaa حق هودك كربريد waa 30 marka maayirka Laascaanood baa xukuma muxuu sax dheer
konsolka golaha deegaanka muxuu ahaa waxa xukuma degmada Laascaanood marka dadku isaaq maleynta guri ka dhisay Laascaanood yaqaan 16 sano wuxuu joogay garaacan cali gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood laakiin inta systemka Soomaaliland ka taliso bisan joogin ismada kala mid buu camuu joogay mid goljanuu joogay mid meel kale joogay ina gobolka Sool bay joogeen magaalada gudaheeda ka maqnaa inta laakiin dhamaan gobolka way joogeen bulshada Soomaaliyeed bulshada SSC bulshada reer Puntland guud ahaan hiil walaal maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan waxaan ugu baaqayaa bulshada harti kala qaadi mayno hiil walaal iyo kala qaadi mayno kelmadda hiil walaalna waa iska afgarashe harti deegaanku dhulkeena la leeyihiin waa kuwa ku dhimanaya waa kuwa u dhaawacmaya waa kuwa resource-kooda dhaqaalooda ku bixinaya waxa way boodo rag maalinba mid baa qaawan walaalnimaduna waxa weeye muxuu ahaa waa hiil ee wax kale maaha marka dhammaan dadka reer Isiina halganka beelaha reer Isiyo dhan oo beelo badan muxuu ahaa waa badan yihiin fiqashini gabooy iyana waa u mahad celinayaa say isugu duuban yihiin inay isugu duubnaadaan waan ku bogaadinaya beelaha hartina waxaan leeyahay waa u mahad celinaya beelaha harti meel ay joogaan ismada ay ugu horeeyaan muxuu ahaa Islaam Bashiir Islaan Cabdullaahi ugu horeeya boqor Burhaan boqorka beelaha Daarood ugu horeeya ninka la yiraahdo muxuu ahaa Islaam Ciise isna muxuu ahaa waan u mahad celinaynaa ismada kale beelaha warsangeliya aan walaalaha iyagana muxuu ahaa waan u mahad celinaynaa dhammaan Allah musta'aan hartina waa u mahad celinaa gaar ahaan waxaan harti u mahad celinaynaa الله نك أرتوح نحن علينا هوينك أو أنفردي أو محوها إذا ما هي الورال لفدبر وها وعن صحن ورجع كعاير ولا أنت تقال كنت نقص عني وأن هي الورال سوق من كميست محوها ساتك سات كان كل جوين مركز دمر واحد يرجع لا محوها هي هذا نقولها سوق الميسان قاري وذلك سين إذا ما بدها من صوب حي حلت لا تصدم إلى اللام يقص عبنا يانو محوها يرجع لنا يانو تبنا عيني يردت كينو مقالة كحظة هالنقطة وحنا سر والكنا نقوم هذا اللي إنه سنة صاحبنا هاي وهرتي وسنة اللي هذا محوها شنو كسنارت oo aan rumayna saan la saxaabay inaan ku soo dhaweeyno marka xoreynta muxuu ahaa dhamaato waxa Captain Ayub oo isna Jarmalka jooga General Ayub ha isagana waxa weeye waxaan rabnaa hawshan hiil walaali qayb uu ka kicintayo isna waxa weeye reerisi fariin baan uga sidaayo waxa way salaamayaan marka fariintooda inaan halkan ka gudbiyo baan doonayaa dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay ee Muqdisho iyo Hirshabeelle iyo meel jooga iyo Galmudug iyo jooga muxuu ahaa koonfur galbeedna waa salaamayna walaalnimada iyo ehelnimada iyo Soomaalinimada inoo balana waxaan ku dhimanaynaa waxa leenahay waa Soomaalinimo cadawgeenu waa nimanka Soomaali diidka inteena kala dad Soomaali oo golbeena ninka Soomaali diidaya maanta waxa weeye laba cadow baa jira cadow waa tilada dawladda federaalka waa la dagaalamay hawa nimanka odayaasha cadawga kale waa kuwan muxuu ahaa iyaguna le muxuu ahaa dhulkan kala goynayna kalabada cadow in isku si loola dagaalamo baanu muxuu ahaa baanu dadka muxuu ahaa baanu ugu baaqaynaa Soomaaliland hadda waa dogtii maalsheedka dhibaatooyin far badan baa gaaray hay'adii doonariska deeq bixiyaasha waxa weeye waxa laga jiray waxa la wixii liisin jiray international community-gu boqol warqadood buu soo saaray tii wuxuu reeraatiini muxuu hadda waxa weeye international community-gu waan u mahad celinay inay yahay laba reer baa tiini hadda waxa weeye in qaali laga jaray wax walba laga jaray hadda laba reer aan isdul fadhiyaan marka waxaanu kala qaadno insha Allah waanu kala adkaanaynaa waa muxuu ahaa ka adkaanaynaa baanu muxuu ahaa baanu leenahay watahay kaasina wuxuu ahaa siyaasiga reer Laascaanood Cabdiqaadir Maxamed Hagar oo aanu horeysi chance maanta la siiyay waqtigiisana hor aad baan ma santahay. Salaamu alaykum.